madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha midowga murashaxiinta Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ka hadlay madaxweynaha muddaxileedkiisa uu dhamaaday iyo khilaafka ka jira doorashooyinka Soomaaliya. Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu maalintii lixaad si sharci darro ah ku joogo villa Soomaaliya isla markaana uu dhamaatay muddadii dastuuriga ahaa ayuu yiri madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed. waxa uu sheegay in dalka ay ahayd in ay ka dhacaan doorashooyinka qaranka ha yeeshee aysan muuqan ifafaalo muujinaya amaba ku aadan in ay dhacaan doorashooyin loo dhan yahay isla markaana loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay isku tashadaan. Shariif Sheekh Axmed oo hadalkiisa sii watay ayaa waxa uu intaasi ku daray in madaxda dawladda ee muddaxileedkoodu uu dhamaaday aysan halka qayb ka ahayn. waxaan ku dhaqaaqaynaa banaanbaxyo nabadeed oo uu sheegay in lagu dalbanayo in doorashooyin xur ah ay dalka ka dhacaan. siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo isaguna hadlay ayaa waxa uu sheegay in dibadbaxa uu dhici doono maalinka Jimcada ah ee soo socota taariikhduna ay tahay 19 bisha 2 2021. si gaar ah waxa uu sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur in dibadbaxa ay soo qabanqaabiyeen midowga murashaxiinta uu ka dhici doono daljirka Dahasoon ee degmada Boondheere. midowga murashaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhowr jeer waxa ay ku dhaqaaqeen banaanbaxyo balse aysan dhicin. ha yeeshee waxa jiray banaanbax ka dhacay degmada Yaaqshiid oo ay ka dhalatay israsaaseyn dhex martay ciidamada dawladda iyo kuwa ilaalo u ahaa dadka dibadbaxa dhigayay. gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Mudane Cabdi Xashe Cabdullaahi ayaa si cad uga soo horjeestay hanaanka loo dhisay golaha adeega garsoorka Soomaaliya oo ay hore u soo ansixiyeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana saxiixay madaxweynaha dawladda Soomaaliya ee waqtigiisu uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. qoraalka ka soo baxay gudoomiyaha aqalka sare ayaa waxa lagu sheegay in lala socdo xeerka madaxweyne ee lagu soo saaray 7 xubnood oo lagu tilmaamay in ay ka mid yihiin 9 xubnood ee golaha adeega garsoorka Soomaaliya laguna soo daray gudoomiyaha maxkamadda sare iyo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka. tallaabadana ay tahay mid sharci darro ah ayaa lagu yiri warka qoraalka ah ee ka soo baxay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Mudane Cabdi Xashe Cabdullaahi. sidoo kale gudoomiyaha aqalka sare ayaa waxa uu sheegay in golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya 22 bishii November ee sanadkii 2020 ay u soo direen qaraar uu ku soo ansixiyay 7 xubnood oo ka mid noqonaya golaha adeega garsoorka kuna jiraan gudoomiyaha maxkamadda sare iyo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka. Cabdi Xashe Cabdullaahi oo qoraalka uu soo saaray aad u dheeraa ayaa waxa lagu sheegay in gebi ahaanba ay sharci darro tahay hanaanka loo dhisay golaha adeega garsoorka ee dalka kuwaas oo dhawaantan uu saxiixay madaxweynaha xilligiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. ugu dambeyntii gudoomiye Cabdi Xashe Cabdullaahi ayaa waxa uu ku nuxnuxsaday in xeerka ka soo baxay madaxweyne Farmaajo lagu soo saaray xubnaha golaha adeega garsoorka Soomaaliya uu yahay mid nasiib darro ah isla markaana shacabka Soomaaliyeed u horseedaya hanaan aan wanaagsanayn isagoo oo kula taliyay madaxda dawladda in xaalku ay dejiyaan isla markaana wax walba oo ay qabanayaan ay tahay in sharciga loo eego. ugu yaraantii 3 qof oo dumar ah ayaa lagu dilay gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Daynile. dad goob joogiyaal ah ayaa warbaahinta u sheegay in rag hubaysan dumarkaani ay madaxa ka toogteen. haweenka kooxdan dablida ah ay weerartay ayaa waxay ahaayeen 3 hablood waxaana la sheegay in 2 ka mid ah oo xaamilo ahaa ay dhinteen halka mid ka mid ah gabdhahaasina ay badbaaday. wararka qaar ayaa sheegaya in gabdhaha la dilay iyo qofka badbaaday dhammaantoodba ay ahaayeen dad ehla. ilwareedyo ayaa sheegaya in gabdhaha la dilay ay ka shaqaynayeen wasaaradda difaaca qaranka. ilaa iyo hadda wasaaradda gaashaandhigga dalka ma aanay xaqiijin in hablahaasi ay ka tirsanayeen ciidamada qalabka sida iyo inay ahaayeen shaqaale rayid ah oo ka shaqaysanayay oo kaliya xarunta wasaaradda difaaca dalka. maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho waxaa ku sii kordhayay dilka loo geysanayo dadka shacabka ah. warar kale ayaa sheegaya in dumarka ay dileen kooxo ay isku haysteen dhul ku yaala degmada Daynile inkastoo dhammaan wararkan aan si rasmi ah loo xaqiijin karin. goobjooge markii falkaasi uu dhacay goobta ku sugnaa ayaa wariyaasha u sheegay in ugu yaraantii ilaa iyo 3 qof oo rag ah oo bistoolada ku hubaysan gabdhaha ay soo dul istaageen xilli ay bajaaj raacayeen isla markaana ay rasaas ku fureen iyaga oo si dhib yar goobta uga baxsaday.
ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in baaritaano rasmi ah ay sameyn doonaan isla markaana la ogaan doono waxa ay dumarkaasi ahaayeen. maalinkii shalay ayay ahayd markii 3 qof oo rag ah midkooda la soo dhigay deegaanka Siinka Dheer ee duleedka magaalada Muqdisho. dalalka loo geysanayo dadka rayidka ah ayaa marba marka ka dambeysay ku sii kordhayay maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku hareeraysan. ilaa iyo hadda ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya oo ku aadan dalalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho.